waxaa laga joogaa 5 bilood tan iyo markii kiiskii ugu horeeyay fayraska corona ah la soo tabiyo iyadoo tirada dhimashada ay sare u sii kacayso saynisyahanada adduunka dacaladiisa ku sugan ayaa xoojinaya tallaabooyinkooda ay ku doonayaan inay soo saaraan talaal lagula tacaalayo safmarkan ballaaran haddaba waxaynu weydiinay khubaro maxaa sababay in fayraskani uu si degdeg ah u faafo Mawlid Xaaji ayaa inoo haya SARS COVID-2 caadiyan waa magaca fayraska sababaha COVID-19 wuxuuna qayb ka yahay kooxda fayrasyada corona mid ka mid ah 6 aadanaha ku dhici kara. waxaynu joognaa meel cajiib ah maanta meel aynu ku heli karno asalka nooca fayraska runtii si dhaqso ah way soo baxday in fayraska gaarka ah uu xiriir la leeyahay una dhow yahay fayraska pangolin waxyaabaha la arkay ayaa inuu ku faafi karo noocyada dadka fayraska ayaa ka kooban 30 hidawade oo lala meel dhigo 20,000 ee bini'aadamka waxayna isbedelaysaa muddo kadib taasi oo ogolaanaysa saynisyahanada inay sawiraan habraaca halka ay ka yimaadaan iyo sida ay u faafaan isbedelada yaryar ee uu fayrasku samaynayo ayaan si dhab ah ula socon karnaa kuwa ka yimaada Shiinaha kuwa laga hela xeebta galbeed tusaale ahaan kuwa ka tagaya New York iyo wax la mid ah marka taasi waa waxa ay baarayaasha ay eegayaan hadda si ay ula socdaan fayraska fayrasku wuxuu ka galaa jirka bini'aadamka sanka ama afka kuwaasi oo la wareega awoodda AC2 oo ah unugyada caadiga ah ee hunguriga iyo sababada badi caabuqa COVID-19 waxay sababaan qandho iyadoo habkeena difaacu ula dagaalamayo jeermiga si uu uga saaro jirkeena essentially viruses when they're in that phase caadi ahaan fayraska marka uu joogo caabuqa heerkan ah waxa uu afduubaya unuga martida loo yahay kaasi oo ay ka dhigan warshad soo saarta fayraska ama sii deysa fayrus kale kana dhigta xor inay asiibaan meelo kale oo sii badinaysa dabeeto dabcan haddii la neefsado ama la qufaco ama la hindhiso waxa uu awood yeelan karayaan in qof kale uu sii qaado waxaan caadi ahayn in fayraska uu siyaabo kala duwan uga soo muuqdo dad kala duwan taasi oo ku xirana da'da jinsiga iyo xaddiga aad la kulantay so you always get this wide spectrum marka had iyo goor waxaad helaysaa faham ballaaran oo ku aadan jawaabaha caabuqan iyo COVID-19 inaanay kala duwanayn waxaanu ognahay in da'du ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ah inaad la ogaato qariiradani waxay muujinaysaa 8 nooc ee fayraska hadda ku dhex wareegaya adduunka taasina waxaa qayb ka ah inaanu qofna ka badqabina waxay kaloo noqon kartaa in tiro kooban oo ku dhacay ay ka muuqatay calaamado kooban dad kale waxaa jira waxyaabo kooban oo ka caawinaya fayraskan inuu guulaysto midda ugu weyn waa xaqiiqada ah markaad cudurka qaado iyo marka aad faafinayso iyo marka uu xanuunkiisa ku hayo waqti ayaa u wada dhaxeeya marka runtii waa waxaan macquul ahayn in la ogaado noocyada dadkaasi ay qabaan haddii aan la fulin baaris ballaaran oo fayraska ah shirkadaha biologiga iyo daawooyinka adduunka oo dhan ayaa hadda ka shaqaynaya tallaalka iyo daaweynta mid ka mid ah yoolka ayaa ah in markaasi la xakameeyo fayraska waxaa jira dad aan shaqo wadaagnahay oo ku sugan jaamacadda College London oo adeegsanaya kombiyuutarka ugu weyn Yurub ee baarista kaydkii hore ee dawooyinka aynu horay isaga daynay kuna tijaabinay fayraska iyo caabuqyada kale si loo arko in midkood uu leeyahay awoodda xakamaynta fayraska corona waqti dheer waxaa jira ballanqaad tallaal kaasi uu awoodi kara in aynu hor istaagno qaadida cudurka marka ugu horeysa soo saarista waqti ayay qaadanaysaa xitaa haddii saynisyahanadu ay guulaystaan uma badna in si ballaaran loo qaybiyo